السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة قيمة بدن وإذ السلام يا مركلة سو دوادا كلنتو أنا ونكتنا أصحاب تقاليقة تعبضاتنا ذا عاوحان إذين وذا مشروع كله أو فإذي سله أو قطرة أو كالس كأرجع ألابتان وضر كيمة ذي إن UK XUK لها إن darkan aad u jeedaan bundadiisi ama halkii beel waxaa ku jiro 45 kiilo taqriiban waxaa laga gadaa $150 markaad soo gadanaysid beelkan waxaa ka soo baxaya ugu yaraan dhar haduu tayadiisu uu ka yareyn yani ilaa 300 oo xabo shay marka على شيء hadii aad gadato $2 ama $1 ibar waa kugu filan tahay waxayna ku noqotaa mataqaana shaqo abuur fiican marka aniga markasta waxaan idin soo gudbiyaa fikrado oo aad iyo aad u wanaagsan idinkana kuwii ka faa'iideysan lahaa Allah idinka dhigo hadda u jeedaan bahashan ciyaalka yarka loo xiraa meeshaas waa la isaga dhijiyaa sidoo kale mid kala soo qabahaynaa haddana waa ujeedaan kan oo kale u fiirso waa ujeedaan nambarkooda way wataan dhar huudhiya oo lasoo isticmaalay ma aha mustacmal ma aha marka tacbadaatanaada la yiri fursada inta ku wacto way kana kaalay kuma dhahayso laakiin inaad doonatid ay ka rabtaa fanaanadan waxa qaada karo canug wiil 8 jira 9 jira wuu qaada karaa hada $1 ibar siisato $2 orod waaye magarat sidoo kale bismillah shaaxan ku jira sarwaal dherer badan oo stage oo xatay gabar weyn oo gashaantiya ay qaada karto ujeedaan fanaanad kala qurux badan Allahu musta'an ujeedaan alaabtan ayaa fanaanadaas $2 dhulka kama dhacayso waxyaalahan iyo waxyaabo kale oo ka badan ayaa meeshan ku jiro ujeedaan saraawiisha wax aan laga helin mala jini jaano dhama lagu soo arooriyay ujeedaan alaabtan si jir alaabta ku jiifay waa habeenkii faant bahal kasto ma yar oo qurux badan marka ujeedaan bahal kale fanaanada kaaliska araga marka tacbadaatanaada la yiri ma fahamti hala tacbado in la shaqeysto wax qurux badan waaye ujeedaan alaabtan oo qandiga oo koofida weyn leh rabad ku sii cunuga habeenka hadii dhaxdhaxan ay jirto kaaliska arag sarwaal jeans oo kaal arag oo qurux badan meeshan nicmaad taal dadka shaqeysan lahaa Ilaahay idinka soo dhex saaro ujeedaan sarwaalkan 9 jir orod waaye bahal jaaka oo kaaliska araga waatana magarateen bahal buuma oo habeenkii aad ku seexato ama macawiista aad ku xirato meeshan hawla jirta marka waxaa la rabaa dadka inay dhax kala furaan la shaqeysto anigu ereyga idinku dhiirigeliyaa wuxuu yahay tacbadaatanaada hadii la tabcado wala tanaada veero waaye magarateen marka waa ujeedin dhar qurux badan meeshan dhooban hawsha kuma joogto
waa socotaa kaaliska arag. In la shaqaysto maxaa ku jaban? In la shaqaysto maxaa ku jaban? Magafa ay haysto. Hooyo bajaajin igu qaad. Hooyo waa tahriiba. Hooyo booska noo gad. Halkii boos oo cid lahayn kala guyihi. Tahriiba ku geli. Magafa dhab ku dhahayo. Waa lagu rafaadihaa. Imtixaan iyo wareerad geli. Waxaas kugu wad. In adeerayaalo u jeediyaan meeshan nicmadan taalo. Halaga faa'iidaystaa idin leeyahay. Kolba waxaan la weymaayo adduunku waa dharaareeyeen. Alaab kale macaan meeshan soo socota. Gabar yar oo aroosad ma yaa loogu talagalay ma aqaani. U jeedin baashaaniiti. Xoogay waxba soo gargaaray laakiin haddaad ka dhaqdo kaaliska arag waaye. Saaka yaro abu shulshul oo kaaliska arag oo qurux badan waaye. Alaabtan kale soo socota arag. Haye bahal goono oo yaro gabar hadda la dhalay. Dadka looga waala ma fahamteen. Gabartayda waxa caadi ah oo soo gadaa leedahay feer. Alaabtaas u xiray bisik iyo sinka caadi maaha. Sarwaal waa kana 3 jir. Qartab aad ku siiyay wiil iyo gabar waa qaadahayaan. Buuma waatana ciyaartayda markaa aniga inaa idin dhiirigeliyo kama daalaayi. Subscribe-tan igu muxuu ahaa inta ii saartiin iga ceshiisin ma iga dhaaftin laakiin aniga waqtigeygana idin siyaan diyaar u ahay. Maskaxdayda inaa idin la wadaagaan rabaa waxa ku jiro. Maskaxda idin soo shiilaa marba barnaamij fiican idin soo kabaan saaraa. laakiin way ugu jiiftiin maya way ugu jiiftiin. Muuqaalada hal shida hal kala kiciyo meel yar hal gaarsiiyo. Ma fahamteen qofka wanaag ka shaqeeyahayo in la dhiirigeliyo loo baahan yahay. Aniga waa idin dhiirigeliyaa idinkana waa inay dhiirigelisiin. Maxaa yeelay bini'aadanku isku nool yahay dadku is dhiirigeliyaan wala istaageeraa. Maadaama waxa aan ka shaqeeyahayno qeyr leh iska dhe maxaa yeelay haddii wax nacfiya laga shaqeeyahayo yacni qeyr waaye. Waxaa daran dadkan oo mataqaanaa iyagoo qaqaawan iyo ninkii hayay wax darno lagu dambaabayo iska soo gidihay kuwaasa laga leexdaa. Ujeedada fanaandan quruxda badan la fiir. Suuqada tagto $3 lagu soo leeyahay $4 carwada. Waa dhan nadiif cusub aan la soo xiranin. Kaaliska jawi degan gelin fahamtay. Marka hala raaxaysta idin leeyahay hala baashaalo hala shaqeysto waxa la qabsado. Marka tacbadaatanaada idin leeyahay horumar sameeya. Adduunyada waxa lagu gaaraa inaad kasbato. Kasabkaaga hadduu wanaagsan yahayna dheef iyo horumar waa ku gaaray ma fahamteen. Marka laakiin haddii oo mataqaanaa dhigto cid la sugaayo male. Risaqan inta soo haado fadhigaaga ma kugu imaahay. Inaa jiriso ka rabaa. Jirisu u baahan yahay baashan good aku qoran. Bahal fanaanada madow qurux badan waaye. Marka qiyaari soo dhawaada beelkaan hadda la furay kulay insha Allah. Waa la kala dhigdhigaa. Inta tiro oo guud ka soo baxay xataa way la wadaagi doonaa. Soo la gadaa waa idin soo wadaagi doonaa. Shaadu aragtiin qiimaha la kala siisanayo iyo beelkaan lacagta ka sameey karto. Marka ama meel banaan daadso ama tabakaayado yar u furo ama dukaan dhiga hada dukaan haysatid dukaanka iibkiisa ku gado hada rabto. Ma fahamtay wax laga sheekay kara maaha lacag xalaal adoo dhidaayo. Waa dareemay inaad wax macaan cunaysid fahamtay galaaska biyo lacagtaan aad ka shaqeysid lacagta meesha aad ka shaqeysid galaaska biyo aad ka cabtid caadi ma aha waa dareemay. Waxa leedahay wallahi inuu shaqo fiican qabtaa leedahay fahamtay. Ina xalaal shaqeysatay aad u fahmay. Marka qeyrta qiimaha badan leh waa mahadsantihiin kulli beelki waa kaas dharku waa isku dhowyihiin shaqa ku socoto waa la kala miiraa. Ma fahamtay birimo iyo sogonto iyo teersa loo kala bixi doonaa. Marka insha Allah balanteenu waa inaad naga qurxisiin Nuur Boos waa soo dadaalay
tacbada tanaado uu leeyahay hala tacbado si loo tanaado dadku in waxa ahaay waxaa la rabaa hore loo socdo wax la wada qabsado marka dheefta isku koobayno bal bahashan fiir quruxda badan yaa waa saako yaa kaal iska araga waxaan ku leeyahay gabadha hadii loo galsho xataa aroos camal ay noqon fahamteen marka ma mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.